السلام عليكم صاحبته maanta waa maalin jimco ah aynu ku salina xabiibkeen maxamed sallallahu alayhi wasallam sida inooga barateen channelkan waxaynu kusoo gudbi doonaa macluumaad cusub waliba kuwa aad u xiiso badan kalkan kuwii hore waxa ka xiiso badan kuwa hadda soo socda haddii ay ka mid tahay dadka xiiseynaya taxanayaasha kusoo gudbiyo muuqaalkan waa muuqaalkaaga like saar haddii uusan subscribe ku ahayn subscribe dhaho si aad inooga mid noqoto kambalaalkan u sii furo muuqaaladeena si ay dhaqsigu soo gaaraan mar walba oon soo dhigno haddana waxaynu guda galaynaa muuqaalkeena laakiin intaan muuqaalku galin laakiin muuqaalka inuu saar waa inuu dhiirigelin haddana aynu guda galnaya sidaa ku aragteenba xalqadii u dambeysay taxanaha waxay u muuqataa in nisaan ay ogaatay in ayada ruya tahay maadaama ay yaranteeda xasuustay ay soo xasuusatay wax ka maqnaay macnaha xasuustii ka maqnayd maadaama ay soo xasuusatay taasina markii ay labadooda ay is ogaadaanba midaan inay tahay ninkaan intaan oo muddo oo sana ah midda ugu weelna inay ayada la ahayd iyo ma aragtay waxay u dhigi doonaan qaab ma aragtay caalami oo aad ay uga taxadiraan xalqadaasna mid qiiro badan ay noqon doonto haddayba noqoto waa xalqada 31 ama 32 midda noqotoba dhanka kale aan kasoo gudubno mawduuca nisaan iyo ashraf taag aan u gudubno mawduuca faaruq iyo maxay ahayd mid qiyaanaysay magaceeda ay tahan naagtaas ayadana waxaa la sheegaa in aysan qiyaanada markaan ugu horeynin oo hadda haaruunka naftigiisa ay ka takhaluseen qiyaanadana ayadaaba ka dambeysay haaruunkan markii uu sii dhimanayaba waxa uu sheegayaa naagtan sida ay tahay inayba kasii hays badan tahay waxay ka soo baxayaan waxayba sheegayaan naagtan ay taan inayba u shaqaysaba odayga waa odayga musalsalka sida la filayo laadarka ugu dambeeya ka noqon doona gabi ahaanna meesha lagu soo afmeeri doono marka waxaa la filayaa in odayga ay la shaqayso naagtan ay taan la dhahayo si ay u ogaato ashraf taag maadaama ay cadow isku yihiin ay usoo dhex gashana hadhowtina sidaa ay ugu jaajuusto maadaama ay meesha ugu jilcaneed tiimka ay ka taabanayso horta mid aan idinka iloobin duqaan mise odaygan la wadwado yuu yahay yaana jili doono maanta waa idin hayaa asigana nolosha ku haya nolosha keliya idinka muuqaalka laag masaari kartiin xogo ku saabsanaan idin hayaa musalsalka cusub ma taqaanin oo yaratili la dhahay hadda soo baxay waxa uu sameeyey in uu reytinka kala wareego ashraf taag mise riyadii ashraf musalsalka markii uu musalsalkaas reytinka kala wareego dadka musalsalka sameynaya maadaama ay ogaadeen in hoos u dhac hadda ku imaanayo waxay go'aansadeen marka in ay soo muujiyaan odaygan waxayna ogyihiin haddii odaygan uu soo baxo odaygan qarsoon mise qofkan shakhsigan qarsoon haddii uu soo baxo waxay ogyihiin in taxanahani uu kor u kici doono kaaga sii daran waxa uu sii daran oo hadda dhex wareegaya baraha bulshada in odaygan uu jili doono qof daa'ir kaliya magaca ayay waxay doonayeen inay ka dhigaan qof weyn in loo maleeyo balse waxaa jiri doona qof yar qofka jiri doona haddii aad ogaataanna waxaan filayaa inaad ku farxi doontaan labadan jila isuguma horeyso midkaan hadda ashraf taag jilayo iyo aktarkan kale hore waxay usoo wada jireen musal weliba aad u fiicnaa sheekadiisa hataa xogo idinka tataabto waxaa laga yaabaa inay fahantiibo waxay ku jilayeen laba walaalo ah mid ka midna waxa uu shaqaynayaba jalaal kawaable haddii aad xasuusataan weliba sirdoonkiisa ayuu ka mid ahay askarta ayuuna u shaqaynayay walaalkiis kalena jalaal kawaable uu shaqaynaya laakiin dowladda sirdoon u ahay tasaaba idinkaga badanbo faahfaahin soo maahan marka doorkaas ninka jilay waa aras bulet bal fikirkaaga ka dhiiwaad haddii uu isaga noqdo mase uu noqon lahay sidee noqole taxanaha xiisaa uu hadda leeyahay soo kama sii dari lahayn mase hoosba u dhici lahay ninkaas waa aragtaan mar walba jilinkiisa waa mid inabaan caadi ahayn haddii aad ku fiirsateen taxanihii garaad ama caaqilka waa ogeedeen sida uu u waalnay marka nin sidaa u waalnay haddiiba door xumaan loo dhiibay oo laga soo horjeedisay haddana mid kaloo asigana ka fiyoweyn meesha maxaa kasoo bixi kara idinla tahay marka waa laba waalan haddana laba sheeko oo mid walba mid kale kasii awood badan yahay ay wada wataan ladoodaba marka maadaamaan ashraf taag xarakadiisaan aragnay waxaa inoo dhiman marka odayga xarakadiisa oo jili doono aras bulet marba haddii sidaas tahana waxay u muuqataa taxanaha sheekadiisa inay sii dheeraa doonto mawduuca taxanahan aan halkan u gudubno kuwa xiga taxanaha xiga waa IBA waa taxana mar dhow soo baxay asigana haddana waxa uu maray xalqadiisa 5aad marka asigana waa taxano kale aad u xiiso badan haddana waxaa la sheegayaa xog in doogaan uu si toos u qaabilay inuu haddadan fadhiisto kursiga hoggaanka ee Hanji Oglo mise waa Xaaji Oglo iga saxaba kuma tegin hadda waxa uu ku qasbanaanayaa si toos inuu dhex galo maafiyada cadowgiisana uu si kawaji u wajaho cadowgiisa ugu weyn waxaa loo malinayay inuu yahay Behram laakiin Behram ma aha waxaa jira cadow kale Behram ka weyn xitaa Behramka naftirkiisa waa uu ogyahay cadowgaas inuu yahay mid naxariis daran aanan naxin baarjileecana qorin wixii naxariis la dhahayna iyo naxariistaba la kala siibay macnaa Behramka naftirkiisa uu ka warqaba halista uu leeyahay
shaqsigan cusub. Doorkan cusub waxaa lagu magacaabaa Shimshek, waxaana jiri doona actor aad u weyn asagana dhanka Turkigana magac weyn ku leh, mas'alo badan hogaamiye ka noqday waliba oo badi kuwa maafiyada inta badan waa uu ku jiraa. Doorka Shimshek waxaa matali doona actorka lagu magacaabo Oktay Kainorja. marka ninka waa taqaaniin fikirkan dhanka comedy inuu reeba sidoo leeyahay ninkan muuqaalma inuu masalka soo gal oo la xifalto ninkan cagta u saaro. masalkan xiga xogtiisa inuu idinkaga wadno isagana waa Tashaak Butanis ama jacayl qoto dheer. asigana waxaa la sheegayaa hadda doorka Faatix in diyaarintiisa ay bilaabanayso. hadda qoladaas kale masalka waxay heshiis kula jiraan Eren Furdem. horta shushuxa aad maqsoontaa waa laga shakisan yahay inuu isaga jilaalay, laakiin hadda si sax ayaa waxay kula jiraan heshiis inuu isaga doorkaasi qaato. marka waxaa la sheegay imtixaanahani uu doorkani Faatix Fartuuna uu kusoo biiri doono 3 xalqo ee soo socota. taxanaha 3 xalqo soo socota hadda waxaa maraya 18 waa 19 20 ama 21 saddexdaas xalqo mid kamid ah dhexdeeda ayuu imaan doona. haddii uu saddexdaas imaanin xitaa kulli Faatix Fartuuna doorkaasi waa mid mar soo gali doona taxanaha, ha fogaato ama ha dheeraato. maalinta uu taxanaas imaadana waxaa kala haad ka dhici doona labada qoys ee Fartuuna iyo Kujaari. labadaas qoysna cadawtinimadooda waxaa hadda dab kusii shubi doono waa Faatix Fartuuna, maadaama Iso iyo Uruj ay wanaagii raaceen. Faatix Fartuuna waxa uu ka darnaa doona adeerkiisa oo Shariif ayaaba madaxa gacmaha saari doono. taas soo war xiiso badan maaha, waa sugeena asigana. midaan idinka iloway saxaabe waxaa jira akhbaar sheegaysa inuu geeriyooday actorkii weynaa ee Kambolat Korkem Arsalan. waxa uu geeriyooday sida la sheegayo shalay, waxaana ku geeriyooday isbitaal ku yaala Istanbul. Allah u naxariisto. marka hore actorkan wuxuu ahaa mid aad jilinkiisa u sareeyo, wuxuu kaloo ahaa actor aad inta badan u jila taxanayaasha diiniga ah. waxa uu kasoo muuqday 4 ilaa 5 taxano diini sidaa jeclahay, waxayna kala yihiin Cusmaan, Salaaxudiin, Albarslan, Amiirada oo Distaan ah. 4taas way u maleena kuwa kalena waa ay jiraan, laakiin inta badan taxanayaasha diiniga ah ayuu aad jilinkiisa ugu wanaagsanay waa uuna ku soo baxay. marka waxaan leeyahay sidaas nabadgelyo asigana Allahna ha u naxariisto, maadaama uu ka baxay caalamkeena uuna aaday caalamkii uu sida dhabta ahay ugu laaban lahay ebilba. Allah u naxariisto. waxaan idin leeyahay marka sidaas nabadgelyo. mac salaama asxaabe.